insha Allah tacaala waxaan rabaa hadal aad u macaan oo yar oo gaaban oo uu soo dhigay safxadiisa ninka la yiraahdo Dr. Umar Cabdilkaafi oo ah culimada aadka looga yaqaano islaamka dhexdiisa nin aad u caan ah Umar Cabdilkaafi safxadiisa ayaa saaka waxaan ku arkay hadal aad i cajabiyay ma sha Allah wuxuu leeyahay waxyaalaha dhaco ramadaanka marka la gaaro aakhirkiisa dhaco ugu dambeeyo salaada casr maalinta bisha ramadaan ugu dambaysa laga bilaabay ilaa iyo aadaanka maghribka ayaa wuxuu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ramadaanka wixii uu cadaabta ka soo xoreeyay maanta koobaad oo liana Ilaahay subhanahu nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu ku leeyahay walillahi utaqaa min an-nar wadhaalika kullu layla habeen waliba Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaabtiisa dad buu ka xoreeyay ramadaanka habeenkiisa koobaad habeenkiisa labaad habeenkiisa saddexaad ilaa habeenka ugu dambeeya habeen waliba wixii uu Ilaahay cadaabta ka xoreeyay wax la eg ayuu salaada casr ilaa iyo maghribka inta u dhaxayso maalinta ugu dambayso hal mar buu inta soo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaabtiisa ka xoreeyay waana maalin dacwadeedu la ajiibayo xilligaasi waqtigaas salaada casr ilaa maghrib inta u dhaxayso ducadu waa la ajiibaa lamana soo celiyo waa hadal aad u cajiib ah ma sha Allah waxaan jeclahay muuqaalka yarka dadka afka Soomaaliga ku hadlaya meel waliba ay joogaan inaad insha Allah tacaala aynu iswada gaarsiino walaal u dir waxa laga yaabaa qof muslim intuu masaajidka galo inuu ka faa'iideysto u duceysto ilaahayna ka aqbalo nin walba iska baahay waa ogtahay dadka luqadda aan ku hadlay fahmayo dhan inay muuqaalkan isgaarsiiyaan ma jeclahay waa maalintii ugu dambeysay wabarakallahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khayr kafaafi ajir baad ka helaysaa insha Allah tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh